wacan dhamaantiin daawadayaal kusoo dhawaada warka fiidnimo ee Shakaal TV oo idinka iman doona xarunta ku leeyahay magaalada Nairobi. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah dowladda Qatar oo hay'adda maareynta musiibooyinka ku wareejisay 150 tan oo timir ah. shacabka Kenyaanka ah oo ka cabanaya sare u kaca qiimaha shidaalka iyo dalalka Canada iyo India oo xiisad ka dhex taagan. kuwaas waxay ahaayeen qodobadii warka haatan ku soo dhawaada iyaga oo dhameystiran. aynu ku bilawnay dowladda Qatar ayaa hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ee Soomaaliya ku wareejisay 150 tan oo timir ah. munaasabad kooban oo maanta ka dhacday dekada weyn ee magaalada Muqdisho ayaa gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa dowladda Qatar kala wareegay deeq gargaar mucaawino ah. goobta deeqda lagula kala wareegay waxaa ku sugnaa safiirka dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya Mudane Cabdalla bin Salim Al Nucaymi. gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle mas'uuliyiin ka tirsan Qatar Charity iyo xubno ka socday maamulka dekada Muqdisho. mucaawinadan oo gaaraysa 150 tan oo timir ah ayaa loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka danyarta ah iyo kuwa ku nool deegaanadii ay dowladda ka saartay Al-Shabaab. Cabdullaahi Maxamed Cali oo ah gudoomiye ku-xigeenka Qatar Charity ayaa ka warbixiyay deeqdan ay dowladda Qatar ku wareejisay Soomaaliya. maanta waxaan u taagannahay in aan tadsiinino had gargaar naga soo gaaray sanduuqa Qatar gargaarka oo ah 150 tan oo timir ah. ma aha gargaarka markii ugu horeeyay ee sanduuqa Qatar oo soo gaarsiiyo dalka Soomaaliya. waxa iska kaashan doona fulintiisa gargaarka hay'adda Qatar Charity Soomaaliya xarunteeda tahay Soomaaliya iyo hay'adda Sodma yaa waxay iska kaashan doonaan fulinta iyo tanfiidka muxuu ah mashruuca. gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka ee Sodma ayaa dhankiisa u mahadceliyay gargaarka Qatar ka yimid. waxaan runtii uga mahadcelinayaa dowladda walaalahayna ee Qatar garab istaaga runtii ay mar kastana la garab taagan yihiin kaalmada. waa kaalmo weyn oo runtii sanduuqa Qatar fan ka yimiday dabcan ummadda Soomaaliyeed loogu talagalay. waxaan halkan ka cadaynaynaa inaan sidii loogu talagalay raashinkan tayada badan oo timirta ah oo xilli runtii loo baahnaa yimiday oo runtii dalku ay ka socoto dagaal oo looga xoreynayo cadawga oo ay jirto runtii roobab iyo daadad aan la filan karo inay yimaadaan maalmaha soo socda bisha soo socda iyo meelaha ka bilaabanayo oo runtii barakac oo hore u jiray aad iyo aad ay runtii ugu mahadsan yihiin xilli adag oo culus ay nagu yimaadeen. waan uga mahad celinaynaa waana insha Allah tacaala si wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed ay runtii ay min gees ay ka faa'iido ayaan insha Allah tacaala u qaybin doonaa. waana ku mahadsan yihiin. waxaan mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa shacabka walaalahayna ee Qatar. dowladda Qatar ayaa Soomaaliya waxay ka caawisaa arrimaha bini'aadanimada iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha. xiriirka labada dowladood ayaa sahlay in dib loo dhiso 2 wado oo gobolka Banaadir ku xira gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Xafsa Maxamed, Shakaal TV, Nairobi. shacabka Kenyaanka ah ee ku dhaqan xaafadda Islii ayaa ka cabanaya sare u kaca qiimaha shidaalka. Zakariya Cabdullaahi Tooxow ayaa inoo diyaariyay. waxa weeye war shidaalka ku dar lacagtii ku dar ma yeelayaan. maalmo kadib markii maamulka u qaabilsan maareynta adeegyada tamarta iyo batroolka dalka Kenya EPRA uu kordhiyay qiimaha lagu kala iibsado noocyada shidaalka ayaa waxaa taasi ka dhalatay in qaar ka mid ah gaadiidleyda ay kordhiyaan nooliga lagu raaco gaadiidka dadweynaha taasoo shacabku isticmaalo gaadiidka dadweynaha ay walaac ka muujiyeen. darawallada ka howlgala bosteedyada xaafadda Islii sida 12 Street iyo 8 Street ayaa la tacaalaya sida ay ganacsigooda maalmaha ah ay hore ugu sii wadi lahaayeen iyagoo ugu baaqay dowladda inay hoos u dhigto qiimaha shidaalka. qaar ka mid ah wadayaasha tagaasiileyda ka shaqeeya caasimadda Nairobi ee dalkani Kenya ayaa cabasho ka muujinaya kororka ku yimid qiimaha shidaalka iyo sicir bararka nololeed ee jira. magacaydu Cabdilatiif waxaan ahay dadkan gaarida ka shaqeystay taksiilayaasha iyo shaqadan caadiga gaarida ku jira.
marka aniga waxaan leeyahay dawladda shidaalku way iskaga daraysaa ha ku dartay laakiin dadkii hadda anaga aan qaadaynay customka hadda tira war shidaalkii baa lagu daray oo shidaalkii baa lagu daray wax ku dara ma ogolo marka dawladdu waxaan ka codsanayaa inay maaragtay shidaalkan ay kor u wado ee sii wado inay hoos u dejiso marka anaga ay shacabka dadkii dhibkana kala haysto waxa weeye war shidaalkii ku dar lacagtii ku dar ma yeelayaan magacay waa Cabdiraxmaan Yuusuf Keenan aniga waa bukaaji halkan isli marka arintan Ruto waa aad baan uma faraxsan maxay yeelay balami uu qaaday wuxuu ka qabtay malaha teeda kala wuxuuna yiri waa bottom up laakiin hadda sida arintay u taala waxa ay bottom up dadkiina hata la qaadi jiray Brian shidaal baa kordhay waxa waxay ka yeelayeen malaha marka arinta aad bay walaal gabaadhi sidan ay u arkaysiin bay u taagan yihiin kulligood waxa kuma qarmaay ma maqlaan waxa inaga iska leeyihiin lacagtii kala baxay big iska raacay marka dhibaato soo kuma dhibaato gaari saaks meeshu istaagay ilaa maqribka wasada lagu kala dhaqaaqa biilna waa laga rabaa kirana waa laga rabaa iskuulka waa kan laba maalin la xirayn laba maalin way furayn 2 weeks haddana iskuul fiisa laga rabaa marka arinta aad bay walaal ninkan balamiis waxba ka sameyn wuxuu qabtay malaha dawladdii horaan oo dhantay tan waxaa la dhahaa dawladdan waxaa la dhahaa bottom up mo kani waa Moses waa darawal gaadiidka dadweynaha ee matatuuda ee ka howlgala xaafadda Islii iyo nawaaxigeeda wuxuu ii sheegay in ay xanuun ku hayso sare u kaca maciishada mana garanayo sidii uu ku qancin lahaa customerkiisa isticmaalo matatuuda mtu wa matatu mimi nafanya kazi ya matatu mambo ya mafuta imeaffect sisi watu wa sekta ya matatu kwa sababu hii gari inakunywa mahali ilikuwa inakunywa shilingi 500 inakunywa 800 mahali ilikuwa inakunywa 1000 inakunywa 2000 ikifika jioni mafuta hii gari tukiweka mafuta sisi wafanyakazi hatuna kitu mwenyewe anadai gari inadai sisi tunachemka tunaenda kwa nyumba bila kitu qaar kamid ah Kenyaanka wadayaasha mootooyinka ayaa ila wadaagay dareenkooda arinkan ku aadan waxayna ii sheegeen inay la tacaalayaan shaqo xumo inatuumiza sana sisi kama wana bodaboda watu wa chini inafaa tuangaliliwe tunafinyika hasaatee nooca petrolka ee loo yaqaano super petrol ayaa qiimaha tafaariiqda lagu iibinayaa 211 shilin halkii litir maamulka ayaa sheegay in shidaalka dieselka ama naaftada halkii litir lagu iibinayo 200 oo shilin halka kerosene uu noqonayo 202.1 shilin halkii litir Ebra ayaa tani u aaneysay inuu kordhay qiimaha shidaalka loogu soo dejiyo dibadda dalka dabcan tani waxay ka turjumaysaa sawir xanuun ah iyadoo howlwadeennada gaadiidka dadweynaha ay la tacaalayaan hab ay ku sii wadalayaan ganacsigooda iyadoo dhinac kalena ay jirto cabashada dadweynaha Zakariya Cabdullaahi Taaxaw Shakaal TV Nairobi gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale oo la hadlayay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan gobolka Shabeellada Hoose ayaa ugu baaqay in shacabka ay ka qayb qaataan dagaalka ay dawladda kula jirta al-shabaab maxaa yeelay munaafiqaad noqonaysaa mudabdabiina bayna daalika laa ilaaha ulaa'i walaa ilaaha ulaa'i xaggana waa jirtaa intana waa jirtaa shabaabkana waa jirtaa dadka shacabka dadkooda deegaankooda quraynayna waa ka mid tah suuragal maaha marka waa inaad dhinac u baxdaa waxaad u baxaysaa weliba difaaca naftaada iyo maalkaaga iyo eelkaagaad u baxaysaa qofka maalina u dhimanayaa maalina baa dhima maayo qof labada jeer dhimatay arka qof laba jeer dhimaysay arka mar unba u dhimanayaa meeshaad ku dhimane goortaad dhimane kulli waa qoran maktubun cindilaahi waay saacaddii laguu qarana saacad kuugu darsoomi mayso adigoo naftaada badbaadinaayo oo deegaankaaga ee dalkaaga ee dadkaaga aad ka difaacanayso kuwa ku soo xadgudbaayo inaad dhimataa kuu roon waxaa laga dhawaajiyey duruuf badanaa laga dhawaajiyey duruuftaas hoosaan u fiirinaynaa wixii aan ka qaban karna haddii ilaah yidhaahdo waa ka qabanaynaa ugu dambeyntiina xiisad ayaa ka dhex taagan dalalka Canada iyo India kadib markii la dilay muwaadin Canadian ah waxaa inoo faahfaahinaya Maxamed Baashi Canada ayaa ku eedeysay dawladda Hindiya inay ku lug leedahay dilka hogaamiye Canadian oo ka soo jeeda bulshada Sikh la yiraahdo kaas oo ka dhacay meel ku dhow magaalada Vancouver ee dalkaasi bishii June eedeynta ayaa dhalisay in labada dal ay isugu jawaabaan eriyada diblomaasiyiinta kadib markii New Delhi ay eedeyntaasi diiday kulan tilmaamtay mid doqonnimo eedeymaha ayaa sii xumaanayay xiriirkii markii hore liitay ee Ottawa iyo New Delhi oo hadda gaaray heer cusub oo kii ugu hooseeyay
ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in kulan degdeg ah oo baarlamaanku uu yeeshay iyo dowladdiisu ay heleen xog la isku halayn karo oo ah in wakiilo Hindiya lala xiriirinayo ay ka dambeeyeen dilka Hardeep Singh Nijjar oo hogaamiyaha heshiis dibadjoogga ah oo ka dhacay gobolka British Columbia ee dalka Canada. ra-iisul wasaaraha oo amuurahaasi ka hadlayay waxa uu yidhi any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen ku lug lahaansho kasta ee dawlad shisheeye ku leedahay dilka muwaadin Canadian ah ee lagu dilay ciidda Canada waa xadgudub weyn aan la aqbali karin ee qarannimadeena ah taasoo ka soo horjeedo xeerarka asaasiga ee bulshooyin kasta ay ku dhaqmaan si xor iyo dimuqraadi ah sida ogtihiin waxaan si dhow ula shaqeynaynaa saaxiibada xulufadan la leenahay ee ku aadan arintan aadka u daran closely and coordinating with our allies on this very serious matter. waxaa lagu baaqayaa dowladda Hindiya in habka ugu xoogan ee ugu macquulsan ay ugala shaqeyso xal u helidda arrintan. wasiirka arrimaha dibadda Melanie Joly ayaa sheegtay in xukuumadda Trudeau ay qaaday tallaabo degdeg ah. maanta waxaynu Canada ka cayrinay diblomaasi sare oo Hindiya ayay tiri iyadoo aan magacaabin sarkaalka la cayriyay. Joly ayaa sheegtay in sarkaalka la eriyay uu yahay madaxa garabka cilmi baarista iyo taxliilinta ee sirdoonka Hindiya ee Canada. wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya ayaa talaadada maanta diiday ku lug lahaanshaha dhimashada Nijjar waxayna sheegtay inay ku amartay diblomaasi sare oo Canadian ah oo aan la magacaabin inuu dalka uga baxo 5 maalmood gudahood. eedeymaha ku saabsan ku lug lahaanshaha dowladda Hindiya ee ficil kasta oo rabshadeed oo gudaha Canada waa kuwa nacasnimo ayay tiri wasaaradda amuraha dibadda bayaan ay soo saartay iyadoo intaa ku dartay waxaan nahay nidaam dimuqraadi ah oo ay si xoogan uga go'an tahay ku dhaqanka sharciga gudaha iyo kan caalamiga ah. wasaaradda amuraha dibadda ee waddanka Hindiya waxay sheegtay in ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau oo bishan booqday New Delhi isagoo ka qayb galayay shir madaxeedka G20 uu eedeymo kuwan la mid ah la wadaagay dhigiisa Hindiya Narendra Modi isla markaana si buuxda loogu gacan saaray eedeymahaasi. go'aanka wasaaraddu ku cayrisay diblomaasi Canadian waxa uu ka turjumayaa walaaca sii kordhaya ee ku aadan faragelinta diblomaasiyadeed ee Canada ee arrimaha gudaha iyo ku lug lahaanshaha dhaqdhaqaaqa ka dhanka Hindiya ayaa intaasi la raaciyay. Nijjar oo Hindiya ku calaamadaysay argagixiso la baadigoobayo ayaa 18 Juun lagu dilay Zava oo xaafad ku taala duleedka Vancouver oo horey ay bulsho ballaaran oo Sikh ay u deganaayeen. Canada waa dalku ay ku nool yihiin bulshooyinka ugu badan ee Sikh ee ah caalamka inta ka baxsan Hindiya. Nijjar oo oleeyay in la sameeyo dal madax bannaan oo Sikh ah oo lagu abuurayo qaybo ka mid ah waqooyiga Hindiya iyo xitaa qaybo ka mid ah Pakistan ayaa arrintaasi waxaa loo malaynayaa inay soo dedejisay dilkiisa. New Delhi ayaa ku eedeysay Nijjar inuu weeraro argagixiso ka fuliyay Hindiya eedeyntaasi uu beeniyay. dunta diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa Hindiya iyo Canada ayaa u muuqatay inay go'i doonto waxaana xiisadu ay ka dhex qaraxday labada dawladood iyadoo midka kale uu ku tilmaamay inuu hab dhaqan xumo ah oo diblomaasiyadda ka fog u dhaqmay. guud ahaan warka fiidnimo ee Shakaal TV Nairobi idinka imanayay intan ayaan ku soo gabagabeynaya anigoo Xafsa ayaa halkan idinka aqrinaysay aniga iyo saaxiibadayga la qayb qaatayba waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.